halkan waxaa ka dhacay arrin qarracan iyo hurdo la'aan dhigtay qoys Soomaaliyeed oo cidlo ku noqday dunidan. mid ka mid ah gawaarida ciidanka ayaa isgooska Holwadaag ku jiray mooto bajaaj ay saarnaayeen gabar iyo aabaheed. shilkaas waxaa ku geeriyooday aabe Axmed Sheekh Nuur, halka sidoo kale uu dhaawac soo gaaray gabadhiisa oo hadda taala isbitaalka Digfeer iyada oo uu wehlinayo darawalkii mootada waday oo isna dhaawacmay. wiilkaan oo ku curtay oo 6 ilmood yar ka tagay iyo haweenaydiisii oo xaamilo ah ayaa gabadh xanuunsan buu sii qaaday, dhakhtar buu ula kacay. ciidamaha gorgor waa hooyo Fadxi Sheekh Maxamed, waxa ay dhashay marxuumka dhintay, waxayna ii sheegtay in gaadiidka dul maray wiilkeeda uu watay taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odawa. hooyadan oo ciil iyo naxdin darteed ilmada cishan la ayaa igu tiri wiilkeyga waxaa dul maray gaari uu wato taliya Odawa oo marka aan muuqaalkiisa arko la ilmay jiray farxad sida uu dalka u difaacayo. gorgor Odawa Yuusuf Raage uu watay yaa wiilkii badheer u dilay, naxariisna kuma ayna dayin. Odawa markaan arna bidhaantiisaan ku raaxaysan jiray, taleefamaha markaan ka dhowran ilaahay cadawgiisa jabi baan dhihi jiray. maantana waa ilaahay cadawgiisa kordhi baan taagnay. wiradkaygii buu ahaa, sidaasuu yeelay. qoyskan murugta heesa mid kasta oo iyaga ka mid ah indhihiisa ayaa laga akhrisan karaa qadarta alle ka sokoona. waxa ay qoyskani codsanayaan inay cadaalad helaan. musacna camal waa la soo wacay, ninkii waa garaab uu dhiig waxyaaba la yiri hadii aan bajaaj qaataan ordayna. waa xaaska marxuumka geeriyooday oo lagu magacaabo Fardooso Cabdulaahi. waxa ay sheegtay in aan la aasi doonin saygeeda tan iyo inta uu cadaalad ka helayo. 12 subaxnimo inuu yiri gabadh gubaan il ka soo bixinayaa oo bajaaj baan raaci rabaan baan ogaa. waxa dhibiyo wax shaani oo kale bisma ogeyn, lama aasin flanjier buu ku jiraa. waxa loo aasilay inta ilaahay xaqiisa ka bicinhayo in la haayo. waxaan ku baaqayaa wixii isaga dilay in ilaahay si ay u dileen ilaahay uu dilo oo xaqiisana ilaahay uu ka soo saaro. gabadha caafimaadkeeda waa qalitaan baa leeyahay, weynan dhiig waxaysi markii ugu dambeysay oo takaatir baa ku jiro kalido oo dilacsan tahay baa leeyahay. marxuumka walaalkiis Ramadaan Sheekh Nuur ayaa isagana nala hadlay oo waxa uu yiri horay waxaan u arki jiray dabaabaadka Amisom oo dad jireesa, balse hadda waxa ku soo biiray gawaarida ciidanka xoogga dalka. waa dareemi kartaa sida Amisonta ku arki jiray in dadka baabuurta weyn dardarsiyaan, laakiin nin Soomaaliyeed oo dhiigka Soomaaliyeed dhaqaajinayo inuu qof Soomaaliyeed taayirka marsiyo haddana ka sii socdo kullee wax laga xumaado weeye. taliyaha xoogga inuu goobta joogay baana loo sheegay. xilligan marxuumka meydkiisa waxa uu ku jiraa isbitaalka Yardameeri, waxaana uu baaqi ku sii ahaan doonaa tan iyo inta cadaalad uu ka helayo sida ehelku ay sheegeen. saldhigga Holwadaag uu hayaa anaguna ka soo qoray waxa waa wax cad oo maartay lagu sameeyay dil cad. meydkii wuxuu yaalaa isbitaal Yardameeri uu yaalaa oo maana naasin mana aasayna ilaa maartay aan xaqana ka helo. waxaan leenahay dawladda federaalka dhibaatada ay loo geysatay waa in wax laga qabto oo shacabkaas la dulmiyay. markii la dulmiyay haddana aan loo istaagin la iska tagay inta la dardaray haddana la iskaga tagay in maartay wax laga qabto. horta awalan waxaan u cabanaynaa Allah subxaanahu wa ta'aala, ka bacdina waxaan u cabanaynaa hay-adaha ku shaqo leh maaragtay in xuquuqdiina laga galay ma garanaysaa meelna loo saaro oo dilkiina loo geystay maaragtay nalagala soo xaaltamo. wiilkiina waa maaragtay waa ma aasayno ilaa ay dawladdu ay nagala xaaltanto arrintaas iyada ah. inkastoo qoyskan Soomaaliyeed ay dareemayaan murugada aabaha gurigan ka baxay kadib markii mid ka mid ah dabaabadaadka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed uu jiiray bajaajkii uu saarnaa aabaha. sida la tilmaamayo ciidamada ay la socdeen dabaabadaadka ciidanka xoogga dalka waxa ay ku sii jeedeen deegaanada Owdhigle iyo Bariire oo ay gurmad ahaan u tageen kadib markii saakay al-shabaab ay halkaasi weerar xoogan ay ku qaadeen. inkastoo taliska ciidanka xoogga dalka qaybahooda kala duwan aan la xiriirnay, hase yeeshee ma aysan bixin faahfaahin la xiriirta in iyagu dhibkan ay geysteen iyo in kale. waxaan sugaynaa jawaabaha ay ka bixin doonaan. Maxamed Yaxya Jinow,
warbaahinta nation muqdisho.